amiirka dhaxal sugaha ee wadanka Sacuudi Arabia Mohammed bin Salman ayaa waxa uu wadanka Mareykanka u sheegay in qoraaga la dilay Jamal Khashoggi uu arkay inuu ahaa islaami halisa sida warbaahinta Carabtu ay ku waramayso. Amiir Mohammed ayaa waxa lagu soo waramayaa inuu arrinkaasi telefoonka uga sheegay aqalka cad ee wadanka Mareykanka. dowladda wadanka Sacuudi Arabia ayaa iska fogeysay warkaasi lagu daabacay wargeysyada Washington Post iyo waliba New York Times. Khashoggi oo ahaa muwaadin Sacuudiga u dhashay kana shaqeynayay warbaahinta wadanka Mareykanka ayaa waxaa si weyn loogu yaqaanay inuu dhaliilo maamulayaasha dalkiisa. meydkiisa ayaan weli gacan lagu hayn hase yeeshee Turkiga, Mareykanka iyo Sacuudi Arabia ayaa dhammaantood waxa ay isku raaceen in lagu dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul 2 bishii Oktoobar. dowladda wadanka Sacuudi Arabia waxa ay diiday oo iska fogeysay in qoyska boqortooyada Sacuudiga ay arrinkaasi wax luga ku lahaa. waxa ayna sheegtay inay ka go'an tahay inay soo hesho xaqiiqda dhabta. intii uu socday wada hadalka dhexmaray wiilka uu sodogga u yahay madaxweyne Donald Trump waa inanka lagu magacaabo Jared Kushner iyo waliba la taliyaha ammaanka qaranka ee wadanka Mareykanka John Bolton ayaa waxa lagu sheegay in Amiir Mohammed uu sheegay in Khashoggi uu xubin ka ahaa ururka Ikhwaanu Muslimiinka sida uu ku waramayo wargeyska The Washington Post. Amiir Mohammed ka wadanka Sacuudiga ayaa sidoo kale waxa la sheegayaa inuu ku booriyay aqalka cad inuu ilaaliyo xulafada ka dhaxaysa wadamada Mareykanka iyo Sacuudiga. bayaanay wargeyska soo gaarsiiyeen qoyska Khashoggi ayaa waxa ay ku diideen inuu xubin ka ahaa ururka Ikhwaanu Muslimiinka iyaga oo sheegay in qoraaga la dilay uu la fahantiisu sanadihii la soo dhaafay si joogto ah u diiday inuu ururkaasi xubin ka yahay. Saeed Ahmed Tamreise, wararka telefishanka caalamiga ah ee Star.